رئيسل وزراء حكومة فدرالka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa kormeeray goobaha ay magaalada Dhuusamareeb kaga sugan yihiin ciidamada booliiska sida gaarka u tababaray Haramcad oo qayb ka qaadanaya sugidda amniga xarunta dawlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb xarunta lagu qabanayo shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug iyo deegaanada ergada shirka ka qayb galaya ee magaalada ka degan yihiin ayuu ra'iisul wasaaruhu kormeeray kuwa ay amnigooda sugayaan ciidanka Haramcad ee booliiska Soomaaliyeed رئيسل وزراء Khayre oo sheegay inuu ku faraxsan yahay in ciidamada booliiska sida gaarka u tababaray Haramcad ay yihiin ciidamo ka howlgali kara meel kasta oo kamid ah dalka isla markaana guda kara waajibaadka qaran ee u xilsaaran yihiin ayaa faray inay laba jibaaraan dadaalada uga qayb qaadanayaan amniga Dhuusamareeb si looga miro dhaliyo qorshaha dhismaha Galmudug loo dhan yahay oo dhameystiran dawladnimada ciidan Soomaaliyeed oo tababaran magaalada Muqdisho laga soo diri karo gobolada dhexe iman karo shaqo qaran fulin kara dalka meel walba looga diri karo waa sida aan rabno mustaqbalka Soomaaliyeed inuu noqdo rajaad u soo celiseen dadka magaaladan joogay imaadkiina kaliya rajaad soo celiseen waxa leedin tababaray ayaa rajadaas keentay shaqo badan oo leedin ka sugaya waa din hambalyeynaayo oo maadsantiin رئيسل وزراء حكومة فدرالka Soomaaliya ayaa maalintii shalay ahayd magaalada Dhuusamareeb u yimid dardargelinta dadaalada lagu dhameystirayo qorshaha lagu dhisayo hay'adaha Galmudug loo dhan yahay isagoo furaya shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug oo gogol xaar u ah helista Galmudug loo dhan yahay Come on.